karinta cunnada dalka uma sahlana sida kuwa dhoofka inoogu yimaada. maqaayadan lagu iibiya raashinka Soomaalida dhaqan ahaan ay caanka ku tahay waxa ay ku taalaa degmada Yaaqshid gaar ahaan suuq Bacaad. iibinta raashinka dalka caadi ahaan magaalada way ku soo badanaysaa, laakiin macaamiisha halkan waxa u dheeri ah in digirta iyo galleyda lagu cuno moos oo caadi ahaan maqaayadaha kale looga bartay in baasto ama bariis lagu cuno. aniga markaa cunayo saliid macsaro amba moos marka dacaawo ma sha Allah adin sinaas kaga diyaadana waa tan hortay taala. tani waa digir iyo galley aad loo bisleeyay. qiimaha cashadan waa 10,000 oo shilin Soomaali ah oo uma badna sida raashinka dibadda laga keeno ee baastada iyo bariiska. badi halkan waxaa ku xiran dadka aadka u daneeya cunooyinka dhaqanka. waxaa ka mid ah dadkaasi darawalada kaxeeya mootooyinka bajaajka sida wadahan oo kale oo sheegaya in goobtan ay tahay mid u fududeysay in uu ku dhex cuno cunnadan isagoo ku dhex jira mootada uu wato si shaqadiisa halkiisa uu kaga sii wato. 5 saac way maana 6 saac habeenkii way maana saan ugu cunaga aan horena u shaqaynaa marka waqtigaabana weyn waxba wax ceeb ma waxa waaye waa raashinkeena dalkeena waay. maqaayadan oo magaceedu yahay Shaawe ayaa dadka yimaada isugu jira duqow, dhalinyaro iyo hablo, waxaana ay amaaneen cunnada digirta iyo galleyda ee halkan lagu kariyo. aadayna u wanaagsan tahay cambuuladan oo dadka yacni wadaniga la yiraahdo wadani cambuuladan filfiliir iyo waxaan faa'iido badan ay leedahay. dadka halkan cunista cambuulada u yimaada kasokow waxaa kaloo jira dad kale oo iyaga cunnadan u qaata xaafadahooda kuwaas oo kaga yimaada meelo fog oo caasimada ka mid ah. waxa keenaysa tag aweega dhalinyarta waa iska taqaana inta badan waxay u badan yihiin iskaabolo cashama ee sameeysa kara marka muxdisha way ka qaadanayaan marka yani cashada way fududahay dab ma galaysid iyadoo diyaarsan soo qaadanaysa shaah la yar aad diyaarsanay bas cashadaadna tana aad u jecelnaanay familkeena waayo way fiicantaa waan cashadii hore laakiin baastii bariis mar walba deeqabtan faa'iido. kani waa Muxudiin Cumar waana milkiilaha maqaayadan oo dadka halkan yimaada ay ugu yeeraan naanistiisa oo ah Shaawe. waxa uu sheegayaa in 10 saac oo galabnimo ay bilaabato shaqada ilaa habeen barkiina ay soo gaarto. sidoo kalena dadka halkan yimaada ay gaarayaan qiyaas ahaan 500 ilaa 700 oo qof. waxaan meeshan furay 93 waxaan ilaa marxaladooyin kala duwan soo marnay qamadiga iyo digirta iyo galleyda iyo masagada labada afarta shaqo karina iyo salbukada marka marxaladooyin kala duwan ay soo mareen mar heer hadda heerkan hadda waxa waa heerkii baalkii wajiga saddexaad cambuulada marka marba si ilaa 3 saac ilaa 4 saac ilaa 5 saac 6 saac 7 saac ilaa 8 saac aan inta joogna waxaan karinaa 1 2 3 aan karinaa oo baarta halka ugu dambe hadda halkan waa kii labaad hal saddexaad waxaa jira ilaa 4 saac oo dadka saacadaha dambe la yiraahdo maaragtay ay saas u qaataan. Maxamed Yaxya Jinow, SAB TV, Muqdisho.